Bismillahirrahmanirrahiim. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo jabkii ku dhacay Faysal Cabdi Bootaan. Haddii aad nagu cusubtihiin subscribe like noo saar. Haddii ku sii socdo Faysal Cabdi Bootaan waa ninkii generaalkii isku sheegayay ee jamaahiirtu ay qabatay oo ku xiran xabsiga Laascaanood ee Khaatumo State. Ninkaas Muuse Biixi ayuu u shaqaynayay, laakiin Muuse Biixi wuxuu ugu talagalay inay dhulbaantay ay dilaan. Waxaa la yidhi dhowr jeer ayuu soo hadlay, wuxuu yidhi guri uu asagu iska lahaa oo dowladda uu ku tabarucaad ugu sameynayay oo hubka iyo ciidamada saanadooda iyo waxaas la dhigayay oo laga soo rarayay. Gurigii ayuu wuxuu yidhi ilmahayga lagu wareejiyo, dowladda ku wareejiso ilmahayga. Laakiinse dowladdii dhammeed ayaa waxay tiri adigu dhimashaan ku xisaabinay, gurigaana dowladda qaadatay. Gurigiisii saasaa lagu qaatay. Waxaa ka hadlaysa oo warkaan soo sheegtay Bishaaro Balde. dhegeysi wacan. aqalkii taliya Faysal Cabdi Bootaan ayay xukuumadda Muuse Biixi sifa sharci darro ama sifa xooga ay kula wareegtay. halkan horta wuxuu ku yaalaa Shinakaare magaalada Burco. Faysal intii aanu Laascaanood lagu xirin aqalkan waxa uu siiyay oo uu si tabarucaad ugu talagalay inay u isticmaalaan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. marka gurigaalkaas ku yaalay ciidamada mar cunto loogu karinayay, ciidamada mar hawlgaladooda waxyaabihii loogu qabanayay loogu qaban jiray. aqalkana waa aqal uu iska leeyahay oo xaq la ka yahay ama mulkiile ka yahay. inta dabadeed Faysal shalay isagu qarankiisa u shaqaynayay nin generaal oo taliye ah. nasiib darro dagaalkii jahalaanta ahaa ee qorshe xumada ahaa ee talo xumada xukuumadda gobolkeedu dhacay ee Muuse Biixi ay dadka gelisay qaybta markii uu ka qayb noqday kadibna abaalkiisii mar kale ay xukuumadii uga dhigtay in goobtii lagaga soo baxsado oo lagaga yimaado sidaana uu Faysal maxbuus ku noqdo. abaalkii labaad ayaa waxa uu noqday bililiqada hantidiisa. marka gurigii Faysal ku yaalay Shinakaare waxa laga bedelay rinjigii, xukuumadda baa la wareegtay, xoogii awood bay kula wareegtay, eheladii Faysal waa loo diiday. sidaan xog rasmi ah ku hayno iyo la wareegay lagu kalsoonyo ehelada Faysal ay noo sheegeen. Faysal wuxuu soo dirsaday fariin marar fara badan sidoo awoodayay inuu fariinta u soo gudbiyaba uu sheegayay aqalka in eheladiisa lagu soo wareejiyo oo gurigiisii ay qoyskiisii uu gacantiisa u soo galo. Bishaaro Balde waa gabadhii Muuse Biixi wiilkiisa uu ka soo xiray Wajaale. gabadhaas markii la xiray xataa abar jeclo gabadhaas oo gabadhoodii oo wariye ah way soo deysan waayeen. waxa u dooday habar Yoonis baa la yiri oo soo deysay gabadhiyo la dhibaateeyo la xiray oo xataa in la garaacay iyo adigu wax lagu sameeyay. habar Yoonis waa soo deysay. habar jeclo waa dad lagu adeegto oo Muuse Biixi soo doono oo ka yeelo. suldaankoodii Suldaan Dubad 100 jeer ayuu la hadlay, wuxuu yidhi iyaan idinku shaqaysanin, dagaalka joojiya. Faysal Cabdi Bootaan uu la hadlay, waa uu ka naxayay. bal hadalkiisa la dhageysta. Faysal Cabdi Bootaan oo gurigiisii Burco lala wareegay. bal haddayna maadeerayaal u dhageysta. waxa aaladda la soo geliyo baraha bulshada marayo ay soo gelisay Bishaaro Cali Bando iyadoo ka soo xigatay wakaaladda wararka ee Boran. wakaaladda wararka ee Boran ayaa waxay sheegtay gurigiisii kaalinta Shinakaare ku taalay in lala wareegay. bal yaa la wareegay meel isweydiin lahayn. waxaynu ognahay halkaa inoogu caddaatay markii lalahaa dila ninkan hala dilo ee habar jecla iyo habar awal lahaayeen la cid kaloo tiri ma jirin. habar jecla iyo habar awal ay lahaayeen ninkan hala dilo in ninkan
daba socdo oo wax ay ku duugan yihiin horta halkaas idinka cadaanay waana si soo ogaanaya balanna waxaan idinku qaaday waxa Faysal la doonaya in lagu dilo inaan public keeno taasayno maqlaatiya hal isku rogmadii Suldaan Dubad wixii uu sheegay ayaa ku dhacay Faysal Cabdi Bootaan waa maqlayseen wuxuu sheegay ayaa ku dhacay dagaalku ka baxdayay waxaaba laga dhiganayaa dagaalkii baa ku dhacay magacii beenta ahaa oo ay koobiyeen waxay maqleen derbi daarood magacii leelkasay maqleen markaasay dheen derbi isaaq waxay u baxsheen habar jeclo hadda caruur yaryara oo ay dhaleen baa waxaa lagu soo gurayaa qorlugad iyo oog habar jeclo hadday dhig iyo uus leedahay oo dad danqanaya ay yihiin bishaaro baado waa u danqan waayeen markii la xiray gabadhana la soo daayay waa dhihi waayeen annaga furuntaa ku jirnaa dadkeenana waa dhibaataynaysaa musow soo daa way dhihi waayeen haddana waa kaa janaraalkoodii ciidanka ugu jiray habar jeclo maanta asoo nool ayaa la dhaxlayaa oo la leeyahay gurigiisii xoog baan ku qaadanaynaa waaba qaadanay habar awal ma imaan karto burco laakiinse waxaa la leeyahay habar jeclo laftigeeda qayb ka mida oo muuse ku daba sujuuda ayaaba xoolihii u dhacaysa oo dhehaysa gurigan muuse waa ku haynaa la wareego qaado waa dhigla-aan ka weyn adduunka lama arag habar jeclo la sheegaya xataa soomaali lamida qaarkood soomaali lamida lama arag suldaankooda Dubad ahaana hadalkiisii dhag waa u dhigi waayeen ciddaas waxaan dhihi karaa meelay ku socdaan ilaahay baa og waxaan u malaynayaa waxaa qoran wiilasha yararka hadda ay soo gurayaan jamaahiirtu inay layso cala hartina uu lafahooda iyo hilibkooda uu cuno sidii kuwii horeba uu cunay dhurwaaga cala harti ahaa marka anugu habar jeclo waxaan leeyahay dhigii uu sadaa leedihiin qalbigiina hal mid baa ku gufaysan nimanka u shaqaynaya muuse jeedaan baa ku gufaysan habar jeclo waxaasoo dhan u samaynayaan habar yoonis bay ka baqayaan habar yoonis awalba habar yoonis baa laysku raacay oo habar awal iyo habar jeclo isku raacay jeedaan baana la dhahaa bay dheheen marka anigu waxaan oran lahaa habar jeclo waa dad inta muuse u shaqaynaya waa dad waalan intooda miirka lehen aan hadal ka maqlaynin dhiigna aan lagu arag doofaarka waxaa lihi ficil xumaa loo cadaabay soomaalida kuma amaadaa hadda waa kaas janaraalkoodii xabsiga laascaanood ayuu biyaha dhaaminayaa gurigiisiina rinjigii baa laga bedelay inta laga bedelay baa waxaa laleeyahay muuse gurigii baan ku haynaa Faysal Cabdi Bootaan meesha odayaashooda ay dhihi lahaayeen Faysal Cabdi Bootaan hana loo soo daayo ay wada hadal sameyn lahaayeen waxay garteen caqligoodana uu tusay habar jeclo inay asoo nool ay dhahaan wuu dhintay dhimashaan ka soo qaadnay xoolihiisana muuse bixi baa qaadanaya waxaan dhihi karaa habar jeclo dadka muuse taageersan oo dhan waxaan dhihi karaa calankiina waa dhacay dagaalkan wuxuu egyahay midaad ku wiiqmi doontaan barnaamijka halkaana uga baxayaa daawashadiina waa ku mahadsantihiin commentiga hoosna ugu soo qoro waxay idinla tahay dadkaas wareersan oo taliyahoodii u dhacaya muuse bixi hoosna ugu soo qoro waxay idinla tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu nabaday